السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي باسر عبد الرحمن. waxaan kamid ah ardayda wax ka baratay Machad Ibn Malik hab online ah gaar ahaan aalada Telegram. waxaana suurtageliyay fursadda qaaliga ah ustaadkeena Sheekh Cabdikariim Sheekh Cabdullaahi Qar Allaha siiye anaga adduunka daafiisa kala duwan joogno. waxaan soo jeedinaa cashir muraajaca oo kamid ah duruus اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول gaar ahaan cashirka 15aad qayb kamid ah. cashirka 15aad wuxuu ku saabsan yahay damaa'ir al-muqaadabaat. sidoo kale waxaan ku baran doonaa qabli iyo bacd. qabli waa ka hor, bacdina waa kadib. qabli iyo bacd waxay laasimaan idaafo. marmarka qaarna waxaad arkaysaa ayadoo ay ka hadfan tahay idaafadii waana loo soo qadaraa sida lilaahi al-amru min qablu wa min bacdu, labadaba way ka hadfan tahay. الدرس الخامس عشر cashirka 15aad. الفتيات iyo Zaynab ayaa sheekeysanayo. الفتيات gabdhihii dhalinyarada ahay waxay dhaheen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب waxay dhahday وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات walaalayaal ayaa tihiin. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday نحن بنات الشيخ عباس. anaga waxaan nahay gabdhaha Sheekh Cabaas. Zaynab waxay dhahday أهلا وسهلا ومرحبا. inta soo dhaweyn gabdhaha way garatay markii. أمكن أستاذتي hooyadiina waa macalimadeyda. kayfa xaaluhaa xaaladeeda waa sidee. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday hiya bikhayrin walxamdulillaah. aad way wanaagsan tahay, allah iyo mahad u sugnaatay. Zaynab waxay dhahday ayna hiya al-aana. aada hadda xaggee jirtaa. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday hiya al-aana fi riyaadi. aada hadda riyaad ay jirtaa. Zaynab waxay dhahday mataa dahabat. goormee ayay aaday. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday ذهبت قبل أسبوع. قبل وتنا waxay aaday isbuuc ka hor. Zaynab waxay dhahday man dahaba macaha ya raacay. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday dahaba macaha akhuuna Ibrahim. waxaa raacay walaalkeena Ibrahim. Zaynab waxay dhahday kayfa xaalukunna xaaladiina waa sidee. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday naxnu bikhayrin walxamdulillaah. anaga had oo wanaagsanahay, allah iyo mahad u sugnaatay. Zaynab waxay dhahday fi ayi madrasatin antunna. madrasato teeka oo aad dhigataan. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday naxnu fi lmadrasati almutawassita. anaga waxaan dhignaa dugsi dhexe. Zaynab waxay dhahday mataa ikhtibaarukunna. goormee waaye imtixaankiina. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday اختبارنا بعد شهر. بعد أيضا وقتنا بعد مضاف شهر مضاف إليه. اختباركين وحواي بالكبهدي. زينب waxay dhahday أذهبتن إلى المدرسة اليوم. maanta ma aadeen iskuulka. إحداهن gabdhihii mid kamid ah waxay dhahday نعم ها ذهبنا ونادنا ورجعنا waan kasoo laabanay. tamaariin cashirkeena halkaas ayuu noogu joogaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.